kulanti wacan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah aynu ku eegi doono dib u furashada safaaradda Soomaalida ee dalka Ciraaq muddo ka badan 20 sano. waa maalin farxad iyo qiimo u leh shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. waxaa bilaabanaysa dib u curashada qarankii burburay. waxaa dib u soo laabanaya xiriirkii iyo cilaaqaadkii Soomaaliya ay la lahayd dunida inteeda kale. halkan waa Baghdad, magaaladii taariikhiga ahayd. waxaa si rasmi ah loo furay safaaraddii Soomaaliya ay ku lahayd dalka Ciraaq. Soomaaliya inay qiimo badan ku leedahay dalalka Carabta iyo caalamkaba waxaa daliil u ah madaxda goobjooga ka ah furitaanka safaaradda. waxaana caalanka si wada jir ah sare u qaadaya safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Ciraaq, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Ciraaq. sidoo kale dadka ka muuqda deganaanshaha ee hareeraha ka taagan calanka buluuga ah ayaa kala mathalaya safaaradaha caalamka uu ku leeyahay dalka Ciraaq. waa danjirayaasha Carbeed iyo kuwa Afrikaanka ah ee hoyga u ah dalkan ammaankiisa sugnayn laakiin ah dal qiimo badan u leh caalamka. madaxdii ka soo qayb gashay ayaa waxa ay ku ammaaneen danjiraha Soomaaliya dadaalkii dheeraa ay u soo gashay sidii Ciraaq safaaraddeeda dib loogu furi lahaa. wasiirka arrimaha dibadda ayaa iiga waramaya qiimaha safaaradda Soomaaliya u leedahay dalka Ciraaq. waxaan maanta joogaa magaalada Baghdad ee wadanka Ciraaq. waxaana joogaa safaaradda cusub ee maanta la furay ee Soomaaliya. waxaa ila joogaa safiiradda ka shaqaysay arrintan Khadija, safiir Khadija ila joogta, Marwa Khadija, iyo Cabdulqaadir Amiin oo isna ah safiirka Kuwait jooga, iyo walaalka Cabdulqaadir Cosoble oo isna jooga committee-ga u madaxda international relationska oo member of parliament-na ah. waxaa kaloo jooga Maxamed Mukhtaar oo ministerka petroleum-ka iyo shaqaale badan oo Soomaaliya. waxay iskugu yimi halkan dad sharaf leh si loo furo markii ugu horeysay ilaa 1993 ayaa safaarad Soomaaliya oo meel rasmi ah ku taala oo gurigeeda degan oo calankii aan saarnay. waxay tahay sharaf weyn aad dadka Soomaalidu meel ay joogaanba Marwa Khadija safiiraddeena in loo mahadnaqo iyo staafkeeda halkan jooga oo intaasoo dhan ka shaqaynayay. waa wadankani waa wadan muhiima, waa wadan caraba, waa wadan muslina, waa wadan aan taariikh dheer wada leenahay oo boqolaal sano soo jirtay. insha Allah boqolaal sano kalena jiri doonta. waxaan nahay wadan isku dhibaato ah imika oo dhibaatada argagixiska, dhibaatada shaqo abuurka, dhibaatada iskuulada la furayo aan isku dhibaatanahay. insha Allah aanan nahayna isku hore u wada soconno oo mustaqbalka wada aragno. Marwa Khadija, Ambassador Khadija, Your Excellency, aad baad u mahadsantahay waxaad dadka Soomaalida u qabatay. insha Allah way kasii fiicnaaneen, Baghdadna way kasii fiicnaaneen inta joogto, safaaradduna way kasii xoogaysanay inta. sidoo kale gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka Cabdulqaadir Cosoble ayaa isna iiga waramaya dareenkiisa. waxaa runtii sharaf weyn ii ah kasoo qaybgalka aan kasoo qayb galay maanta furitaanka safaaradda Soomaaliyeed magaalada Baghdad laga furay oo aan ku faraxsanahay wasaaradda arrimaha dibadda wasiirkeeda iyo safiiraddu inay iga marti qaadeen anigoo matalaya guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaa sharaf weyn oo ah in calankeena maanta la saaray meesha tan. waxaana rajaynayaa safaaradda iyo safiiradda Khayralaasi iyo shaqaalaha safaaraddaba in Ilaahay uu waafajiyo sidii lagu sii nooleyn lahaa xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Ciraaq oo aad sida wasiirkaba uu tilmaamay aan nahay dad ay ka dhaxayso waxyaalo fara badan oo isku mid ah, ama ha noqoto dagaalka iyo dhibaatada lagula jiro argagixisada, ama ha noqoto ma aragtay
kasoo kabashada laga soo kabanayo dagaal sokeeye iyo dagaal dhibaato dhacay waxyaabo fara badan inaan iskaga midnahay waxaan rajaynaynaa inaan isku istiraatiijiyo noqono isku qaab noqono ilaahayna subxaanahu watacaala uu dhammaanteedna waafajiyo inaan ka baxno dhibka maanta lagu jiro maaragtay safaaraddu runtii meel fiican oo wanaagsanna waa ay degtay waxaan rajaynaynaa shaqo wanaagsan inay qaban doonto oo xiriirka labada dalna ay maaragtay horumar badan iyo koruqaad badan ay suubi doonto waana mahadsantahay wasalaamu calaykum waxaa sidoo kale kulankan ka qayb galay oo lagu casuumay madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb galay furitaanka waxa uu iiga waramayaa dareenkiisa bismillahi raxmaan raxiim runtii munaasabad aad iyo aad u wanaagsan ayay ahayd maxaa yeelay 20 iyo dhowr sano kadib markii safaaradda Soomaaliya ee dalka Ciraaq magaalada Baghdad ay xirantay in maanta lagu guuleystay in dib loo furo oo cilaaqaadkii labada dal iyo iskaashiga labada dal oo ah laba wadan oo cilaaqaad iyo iskaashi xoog badan oo taariikhi uu ka dhaxeeyay uu dib u soo laabto safaaraddan ay rumuud iyo horseed u noqoto cilaaqaadka isii soo celintiisa arrin aad iyo aad loogu farxo waaye dhinaca kale waxay farx ka tahay in Soomaaliya ay ku soo laabanayso beesha caalamka oo ay dhammaan meel alla meesha ay ku lahayd matalaad ay dib u soo ceshanayso matalaadeedii iyo jiritaankeedii iyo dawladnimadeedii ay daliil cad u tahay aad baan waxaan u aaminsanahay wax badan ka tari karta maxaa yeelay Ciraaq inkastoo dhaawac iyo burbur uu ka soo gaaray dagaaladii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay haddana waa dal runtii ah dal weyn oo dalalka carabta ka mid ah saameynna kule dalalka carabta saaxiibo badan kule dalalka carabta marka iskaashi iyo maaragtay diblomaasiyad xoog badan oo Soomaaliya Ciraaq dhaxmartaa waxay horseedi kartaa arrinta Soomaaliya inay runtii wax badan ka qabsoomaan marka wax badan bay tari kartaa waxaa sidoo kale maalintan ka qayb galay qaar ka mid ah safiirada Soomaaliya u fadhiya wadamada gacanka sida danjiraha Soomaaliya ee dalka Kuwait waa hormuudka danjirayaasha wadamada Carbeed ee dalkaasi Kuwait Cabdulqaadir Amiin Sheekh bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo calansaarka safaaradda Soomaaliyeed ee Baghdad runtii munaasabad aad u wanaagsan waaye dawladda Soomaaliyeed iyadoo tixgelinaysa xiriirka wanaagsan ee Ciraaq iyo Soomaaliya ayaa safaaraddeena waxay noqotay safaaradaha ugu horeeyo ilaa iyo hadda calankooda ka taagan ama laga saaray dalka Ciraaq saa daraadeed sideedba waa munaasabad wanaagsan marka ay ka dhacayso howlahan oo kale in safaaradaha ku dhow inay ka soo qayb galaan aad baa looga baahan yahay halka ayagoo isku arkaya madaxdii wada tashin isdhaafsanayo tacliimaadna kala qaadanayo marka waxay ila tahay munaasabad aad u wanaagsan waaye inaan ka soo qayb galo taasoo weliba aad u wanaagsaneed safaaradaha ku dhowdhowna inay ka soo qayb galaan munaasabadan maanta calankayna laga saarayo safaaradayna Baghdad danjiraha dalka Suudaan ee u fadhiya dalka Ciraaq ayaa isna ka hadlay goobta بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كم يسعدني في هذا الصباح ونحن نستقبل السنة الهجرية الجديدة أن نلتقي بسماحة معالي وزير الخارجية الصومالي في بغداد لكي نتشرف بافتتاح السفارة الصومالية وهي لا تبعد كثيرا من السفارة السودانية ويكون معا قلب نابض للقارة الأفريقية وللوطن العربي في العراق إن شاء الله ويطيب لي ويسعدني كثيرا أن أتقدم بالتهنئة الحارة للأخت السفيرة خديجة بافتتاح السفارة متمنيا ومتضرعا من الله سبحانه وتعالى مزيد من الأمن والاستقرار لدولة الصومال الشقيقة ومزيد من النماء والتطور والإخاء إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير madaxdii ka qayb gashay furitaanka safaaradda ayaa waxaa lagu soo wareejiyay qaybaha kala duwan ee safaaraddu ay ka kooban tahay
jirno walaalayaal aan isweheshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal safaaradda soomaalida markii aad gudahaad ka soo gasho waxaa ii suurta gashay inaan booqdo qeybaha kala duwan ee safaaradda sida halka lagu soo dhaweeyo dadka martida ah. waxaa sidoo kale aan booqday xafiiska danjiraha soomaaliya halkan u fadhiya ay fadhiisato safiiradda khadiija. sidoo kale waxay leedahay qeybo aada u kala duwan. waxay sidoo kale ay leedahay hooy loogu talagalay in martidu ay seexdaan amaba safiiraddu ay tahay aqalkeeda. waa meel aada u weyn, waa meel ammaankeeda aada loo ilaaliyey, waana meel aada u qurxoon. dabcan waxa ay la mid tahay safaaradaha kale ee halkan ku yaala. shicibiyahow wanaagsane walaalayaal waxyahayagii rumaado walaalayaal shicibiyahow wanaagsane walaalayaal waxyahayagii rumaado walaalayaal wadaag jirbay laba gacmood wax ku qaban karane wadaag jirbay laba gacmood wax ku qaban karane aan isweheshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal aan isweheshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal shicibiyahow wanaagsane walaalayaal wadnahayaga ku yaala walaalayaal shicibiyahow wanaagsane walaalayaal wadnahayaga ku yaala walaalayaal wadaag jirbay laba gacmood wax ku qaban karane wadaag jirbay laba gacmood wax ku qaban karane aan isweheshano walaalayaal wada jirno walaalayaal aan isweheshano walaalayaal wada jirno walaalayaal aan isweheshano walaalayaal wada jirno walaalayaal 25 sano ka hor ayaa ugu dambeysay in Soomaaliya ay iskaashi dhanka diblomaasiyadda iyo waliba dhanka kale ee xiriirka ay la yeelato dawladda Ciraaq tan iyo markii la riday dawladdii Saddam Hussein 2003. khadiija maxamed al-makhsuumi ayaa intii madaxda dalka ay joogeen Ciraaq durbaba u fududeysay inay la kulmaan dhigooda. wasiirka arrimaha dibadda ayaa la kulmay dhigiisa wasiirka arrimaha dibadda dalka Ciraaq isagoo ilaa madaarka Baghdad ku soo dhaweeyay. wadahadal dheer kadib waxa uu sameeyay casho sharaf waxaana labada mas'uul ay ka wada hadleen xiriirka dhaqaale kan siyaasadeed ee ka dhaxeeya labada dal. wasiir Cabdisalaan Hadliye ayaa ugu baaqay dawladda Ciraaq madaxdeeda inay soo booqdaan dalka Soomaaliya. Thank you, Dr. His Excellency Jafari, for meeting me tonight, and on behalf of the President of Somalia, the Prime Minister, and the Somali people, we bring you a very, very warm greeting. On behalf of my brothers and sisters who are with me, the Ambassador and Head of the Parliament, Committee of International, and our Ambassador from Kuwait, we want to thank you for the warm welcome. We feel we are second home. Relationship between the Iraqi people and Somali people is ancient relationship, and we have a very special memory for the Iraqi people and the Iraq history and the Iraqi civilization
and I am very delightful to be here to represent Somalia and from the air, and I'm sure from inside Baghdad. waa markii ugu horeysay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya uu soo booqdo dalkan Ciraaq muddo 25 sano ka badan waxaana dawladda Soomaaliya ay bilowday in xiriir diblomaasiyadeed ay la yeelato dalalka kale ee caalamka dalka Ciraaq waxa uu ka mid ahaa dalalka xiriirka soo jireenka ah kala dhaxeeyay dalka Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka caawin doonaan dhinac walba oo dawladdiisa ay awoodo waxaa sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ugu baaqay dawladda Ciraaq mas'uuliyiinteeda in ay soo booqdaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho uu sheegay in xilligan ammaankeeda uu yahay mid la isku haleyn karo sidoo kale wafdiga waxaa ka mid ahaa wasiirka batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar oo isna la kulmay dhigiisa wasiirka batroolka dalka Ciraaq waxaana aan Maxamed Mukhtaar weydiiyay kulankooda kadib waxyaabihii ay ka wada hadleen runtii waxaad u malaysaa in Ciraaq iyo anaga aan wax badan wadaagno taariikhiyan labada wadan waxay lahaan jireen dawlad dhexe oo awood leh labada wadanba waxa ka wada dhacay colaado ayaa ka dhacay labada wadanba waxa ka jiro in ay u guureen waxaan loo yaqaan federaal soo marka taas ayaa waxay keenaysaa in aan wax badan ka baran karno Ciraaq sidoo kale waa wadan soo saara shidaal Soomaaliya waxaan ognahay inay fursad u leedahay inay shidaal soo saarto marka bal anaga waxay tahay ujeedadeena socodkeeda in aan ka barano Ciraaq waxa ay ka barteen laftigooda qaabkii markay u maareynayeen shidaalkooda sababtoo ah waxyaabaha la isku haysto waxa kamid ah marka wadan uu ka guuro dawlad dhexe uu guuro federaal yaa awood iska leh oo xaq u leh ama kari kara maamulida shidaalka lahaanshaha shidaalka iyo qaybsiga dakhliga shidaalka soo galab saddexda arrin waa saddex arrin oo lagu murmo sidoo kale waxaan la soconaa inay jiraan gobollo ayaga kamid ah oo raba inay madax banaani qaataan ama rabaan awood ka badan awoodda ay hadda haystaan inay helaan marka runtii casharo badan ayaan wadaagnaa marka waxaan ujeedadeena waxay tahay bal inaan ka barano laftigeena sida ay u maareynayaan arrimahaas isla markaas sidoo kale ayagoo colaad ay ka dhex jirto amaan darro ka jirto ayay haddana maareeyaan inay shidaalkooda soo saaraan taa laftigeena anaga waa wax aan ka baran karno duruus soo marka ujeedadeeda waxay tahay in bal waxa ay saxeen iyo qaladka ay galeen laftigooda si aan anagana aan u galin inaan ka barano عليه بلوغي حدكتا عبانكي دحبكا عبرتي إزيقي حرية مثلكي كو عمبحو إن شاء الله مرضى العروه ربي سوحير العرقادو سير عربتيو وبحر دينار عرف دونتا عليه بلوغي حدكتا عبانكي دحبكا عبرتي إزيقي حرية مثلكي كو عمبحو إن شاء الله مرضى العروه ربي سوحير عرقادو سير عربتيو وبحر دينار عرف دونتا وعزيقادي مكان سوحيلي إكوي بفريدك وضع عقر نقم عولاد لدفيودان إن شاء الله مرضى العروه ربي سوحير عرقادو سير عربتيو وبحر دينار عرف دونتا وعزيقادي مكان سوحيلي إكوي بفريدك وضع عقر نقم عولاد لدفيودان إن شاء الله مرضى العروه ربي سوحير عرقادو سير عربتيو وبحر دينار عرف دونتا وعشاء ماني عليو عالمكو إدل عليو لقا عزيني عليو عدكاقو شقيني عليو عرض دهبكا عليو شدالك عميلا عليو عيدين لصوبحي عليو وبعيرك دبكسني عليو وعشاء ماني عليو عالمكو إدل عليو
عزيني عليو عدكاغو شقيني عليو عرضاد الذهب عليو شدالك عمرا عليو عيدين لصوبي عليو وضعير كدبكسني عليو إن شاء الله مرباغ عرانو ربي سوحيل العردادو سيدا حربتيو وبحر دينار عرف دونتا إن شاء الله مرباغ عرانو ربي سوحيل العردادو intaa kadib waxaa habeenkii lagu ballamay xafladii furitaanka safaaradda oo madax hor leh ay ka soo qayb gashay sida gudoomiyaha baarlamanka dalka Ciraaq Osama al-Najafi madaxweyne ku-xigeenada dalka Ciraaq sida Iyad Alawi oo iminka ah madaxweyne ku-xigeen horena u soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq iyo Nuur Maliki dabcan waxaad ka dareemi kartaa qiimaha Soomaaliya u leedahay dalalka Carabta safiiradda iyo shaqaalaha safaaradda ayaa garba siman ku soo dhaweeyay madaxda iyo danjirayaasha caalamka u fadhiya dalka Ciraaq sidaas aad arkaysaan waxa ay gacan qaadayaan mas'uuliyiinta safaaradaha iyo madaxdii kale ee dawladda Ciraaq ka socotay oo ka qayb galaya furitaanka habeenkii xafladda halkan waa hotel Papillon waana halka lagu qabtay munaasabadda furitaanka safaaradda ayaa waxaa ka hadashay danjire Khadija Maxamed al-Makhsumi khudbad dheer oo afka Carbeed halkaas ka jeedisay iyadoo ka hadashay xiriirka labada dal iyo dib u soo noqoshada safaaradda Soomaaliya waxa ay goobta ku soo dhaweysay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Cabdisalaam Cumar Hadliye oo isna sheegay in safiiradda iyadoo dumar ah ay u bareertay inay ka shaqeyso dhul aan ammaankiisu buuxin waxaana ay taas ka doorbiday qarankii Soomaaliya oo u baahan in dib loo soo taago Honorable Ministers, members of the Parliament, members of the diplomatic community, from the President, His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, our Prime Minister, His Excellency Umar Abdurrashid Ali Sharmarke, the people of Somalia to the people of Iraq. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha baarlamanka Ciraaq Osama al-Najafi oo isna aad ugu hadlay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal Soomaaliya iyo Ciraaq معالي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية السيد عبد السلام عمر المحترم سعادة السفيرة خديجة المخزومي المحترمة أصحاب السيادة أصحاب المعالي أصحاب السعادة السيدات السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني في هذه المناسبة السعيدة أن أتوجه بالتهنئة والمباركة إلى جمهورية الصومال وأن أسجل اعتزازي وتقديري بما نهضت إليه علاقات الأخوة والتعاون بين جمهورية العراق وجمهورية الصومال الشقيقة. أنا سعيد بهذا اليوم المبارك الذي يشهد افتتاح السفارة الصومالية في بغداد في وقت تمر به الأمتين العربية والإسلامية بهجمة شرسة وقوية تحاول تمزيق هذه الأمم العريقة وتشويه صورتها وصورة الدين الإسلامي السمح أمام العالم. واليوم تثبت جمهورية الصومال لكل من يحاول تمزيق هذه الأمة أن الروابط التي تجمعنا أكبر من كل المحاولات. السيدات السادة الحضور، يأتي افتتاح السفارة الصومالية في بغداد في أصعب الظروف والتحديات التي تواجه أمتنا العربية، فتحقيق أمننا المشترك وضمان المستقبل الآمن لشعوبنا يتطلب التعاون والتنسيق والعمل العربي الجماعي وصولا إلى استراتيجية عربية شاملة تعالج خطر تمدد الإرهاب والعنف الطائفي والسياسي الذي يشهده العالم بصورة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصورة خاصة. وعليه يجب أن تنبني سياسة أو نتبنى سياسة التسامح
ونشر روح السلام. ugu dambeynna safiiradda Soomaaliya Ciraaq Khadija Maxamed Al-Makhsuumi ayaa ii sharxaysa dareenkeeda iyo hawshii dheereed ay u soo martay dib u furashada safaaradda Soomaaliya ee dalka Ciraaq. waxa aad ugu faraxsanahay maanta in safaaradda Soomaaliya Baghdad la furay bishii ay tahay maalintii 15 Oktoobar 2015 sharaf waxay maanta cilaaqada labada dal Ciraaq iyo Soomaaliya waa muhiim arinta kuwa ka bilaaban waxa waa cilaaqada labada dhinac dawladeed dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda xoojinta dhaqaalaha iyo waxbarashada waxaa ku soo dhaweynaa shacabka Soomaaliyeed safaaradda Soomaaliya xagan laga furay wixii ala facilities oo loogu baahan yahay diyaar u nahayna safaaradda Soomaaliyeed xagan ugu qaban safiiradda Soomaaliya ee dalka Ciraaq Khadija Al-Makhsuumi ayaa horay jagooyin diblomaasiyadeed dalka ugu soo qabatay iyadoo ahayd la taliyaha wasaaradda arrimaha dibadda dhinaca jaamacadda Carabta dalka Malaysia waxa ay ka soo noqotay qunsul iyadoo sanadii 2011 noqotay wakiilka Soomaaliya u qaabilsan dalka Ciraaq 2013 waxa ay noqotay siihayaha safaaradda Soomaalida ee dalka Ciraaq horaantii sanadkan ayaa loo magacaabay danjiraha Soomaaliya ee dalka Ciraaq warqadihii aqoonsiga ayaa laga gudoomay wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweynaha dalka Ciraaq ayaa aqbaleen safiiradda cusub ee dalka Soomaaliya u qaabilsan dalka Ciraaq khamiistii la soo dhaafay ee 15 bishan ayay ahayd markii si rasmi ah safaaradda albaabada loo furay dhanka ammaanka ee dalkan Ciraaq markii aad soo gaarto airportka weyn ee magaalada Baghdad ilaa aad soo gaarto qadka cagaaran halka loo yaqaan ee dawladda iyo waliba diblomaasiyiintu ay degan yihiin ayaa wadada inta soo socota waxaad soo maraysaa in ka badan 19 control ama isbaarooyin oo lagu hubinayo gawaarida aad wadato amaankooda in la sugo amba la fiiriyo walxaha qarxa hadii ay saaran yihiin waxa kamid ah dadka ka qayb qaata sugidda amaankaasi ama baaridda gawaaridaasi ciidamada Mareykanka iyo waliba ciidamo kale ee ajnabi ah ku sugan dalkan Ciraaq insha Allah marbaad xurano rabbi soo celin curudaado sida xurubtiyo uba xurdinaada arfi doonta insha Allah marbaad xurano barnaamijkii gaarka ah aynu ku eegaynay furitaanka safaaradda Soomaalida ee dalka Ciraaq ayaa intaasi ku dhan waxaana idin la socodsiinayay anigoo Ibrahim Cumar Baafe tan iyo isarag maqalkeena dambe nabadgelyo sida xurubtiyo oo baxdinaada arfi doonta